الله ينوغ مهد علينا إنه سورة لأنه نبضه إن قصوا هاي ماشي اللي يراد نور دوغله ديجان كنور دوغله إذا الله سوى وده مري ديجان بدنا الكميديين مع سعيد إلا ما عرفتها حسن جدي ودهان تولين كده ما أو كده ويديجان كان والله سوى وده مري إلهي ينوغ مهد علينا إن جعنت عيد مدى قلب كسيدو يوم عمل كقبل كشبه الله الدحى يحلبنا ده هير فدرال يهير استيد يدد كديجان كو إسكاشان أيو إن السنة بدو كل وريجين إلهي ينوغ مهد علينا الحمد لله اللي يان هاي وعربا إن مهد عليو عيد مدى قلب كسيدو قيبه ده كل الدون يوم عمل كقبل كشبه الله الدحى قدوميو أوريو يحلبنا ده هير فدرال runtii hogaaminayay duulaankan deegaankan lagu qabtay oo xildhibaan Yuusuf Kabaale xildhibaan Xaadowle ay horeeyaan waxaan rabaa si gooni inaan u amaano runtii waad ku dhiirateen hawshii ma aragtay leedinka filayay iyo wax ka badan aad qabateen waxaan la ilaahay idinka abaal mariyo guud ahaan duulaan kasta nimankan qawaariita lagu qaaday waa lagu jibiyay saaka duulaankii laga soo duulay meesha la cali guud ciidamada ka baxay ilaa guulanay tageen meel kasta ay ugu hor yimaadeen ciidanka dawladda iyo nimanka qawaariijtaana waa dhiigooda daadsan iyo dhaawacooda ee meydkooda waana la jibiyay duulaanka looga soo baxay cali guduudna laba qaybood waayay qayb waxay ku socotaa tubtaan hadda aan joogno insha Allah toosaana loo aadi doonaa ilaa runurgood iyo maaragtay caal dheer loo socdo hadii la raalli ka noqdo qaybta kaleentooda ka degatay guulanana aadan yabaalay waqti uu dhow tigi doontaa waxa iska hor imaad doono ciidamada hiiraan ka soo howlgalay iyo kuwa shabeellaha dhex ka soo howlgalana waxay isaga hor imaan doonaan hadii la raalli ka noqdo aadan yabaal runtii guulo isdaba jooga ayaa ilaahayna siiyay Allah ayaan uga mahad celinaynaa waa jabeen nimankan khawaarijta dadka deegaanka waxaan leeyahay yaan loo kala herin hal laga reebto qoryaha muddo dheer ummadan ku amar taagleynayeen maanta waqtigoodu waa dhamaaday yaan loo kala herin balantaynu waxay tahay in lala diriro oo loo kala herin dhamaystirno intay geed ma aragtay dalka Soomaaliya kamid ay hoostiisa ku jiraanna uga herimayna insha Allah hadii la raalli ka noqdo mar labaad iyo mar saddexaad waa amaana ciidamada geesiyada ee deegaankan saddex maalmood ka hor qabtay annagana ujeedkayna wuxuu ahay inaan dhiirigelino waxaan idin cadaynaynaa inaan idinka helayn oon habeen iyo maalin saa idin garab taagnaa doono hadii ilaahay raalli ka noqdo inta dalka meel kamid ay joogaan nimanka khawaarijta shabaabna sidaanan dareeska u gashanaa doonaa geed walba ay galaanaan uga daba geli doonaa guushana ilaahay ayaa na siiyay waana daba soconaynaa shabaab waqtigiisu waa dhamaaday muddadiisu waa dhamaatay ummadan dhibkiisii ilaahay ayaa ka reebay nimankaas waa jabeenay yaa loo kala herin qof waliba waxay ka geysan karto gacanaha ka geysato aad iyo aad u mahadsantiin runtii anaguna waa amaanaya dadka deegaankan u dhashay ma aragtay gacanta ka geystay ama dhiirigelinta xoolaha ahaato ama ha ahaato ma aragtay qalbi dhisida garab istaaga waxaan runtii waxaan leeyahay dhamaan waa mahadsantihiin ninkii maal ka geysto iyo ninkii tala ka geysto iyo ninkii awood ciidan ka geysto intaba waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo runtii nimankaanu ummadan dhibaato badan ay dadkan deegaankan ku haayeen horumaray u diideen waxaad arkaysiin tuulo kastoo nimaado wax isgool ah ka furan ma jiriyo wax dugsi quraan ah ka furan ma jiriyo meel mugdi oo madow ay ummadda ku horrogeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa hal isgoolo furan ma arag hal dugsi quraan oo furan ma arag deegaanada ay joogeen hal isbitaalna ma jiriyo hal MCH-na ma jiriyo runtii meel mugdiya ay ummadan ku hortaagnaayeen afduub ay u haysteen ilaahay ayaa mahadaas iska leh waxaan leeyahay afduubkii waa dhammaayay waqtigiisii idinkuna qoryihiina qaataan leh dadka deegaanka insha Allah iftiinaana loo baxayaa nolol isdaba joogto oo kala isdaba joogto oo xoreynti leh oo ma aragtay dibudejinti leh oo dhinac waliba leh ayaa la heli doonaa insha Allah hadii la raalli ka noqdo runtii waa amaanaya madaxda dalka oo madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha sida uga go'an tahay in Soomaaliya laga cirib tiro nimankan khawaarijta ee dhibaateeyay dalkan iyo dadkan sida uga go'an tahay waxaan la waa mahadsantiin annagana waxaan naga go'an heer istaydahan inaan habeen iyo maalin sidaan u taagnaano garab taagnaano ciidamada insha Allah waana guuleysanaynaa waa jabeen ballantayna waa shabaab oo laga herin qoryahana laga reebto